أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. dhammaanba bulshooyinka reer Somaliland iyo guud ahaanba caalamkeena arkaya ama ina maqlaya waxaan leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. sidaad ka warhaysaan wasaaradda diinta iyo awqaaftu waxay u eegman tahay inay inoo ilaaliso bisha Ramadaan iyo bisha Shawaal iyo ciidaha shaqooyinkeeda ugu muhiimsan bay ka mid tahay. sidaa darteed annagoo ilaa maanta baraha bulshada saa arkayseen soo dhignay in dhammaanba bulshooyinka reer Somaliland meel ay joogaanba ay bisha inoo ilaaliyaan oo bishii Shawaal inay bilatay in kale ay noo kala eegaan oo inta aan sugaynay waxay noo caddaatay dhammaanba gobolkeena guud ahaan geeska Afrika gaar ahaan dalka Somaliland inaan bishii la arag Shawaal. sidaa darteed rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu inoo tilmaamay inoo sheegay in aragna ku soono aragna ku afurno maadaama caynkaa tahay uu nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam suumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. aragna ku sooma oo bishaas Ramadaan markay bilatana sooma bishii Shawaal markay bilatana ciidii Shawaal gala. sidaa darteed inagoo raacayna tilmaanta nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam diin ahaanna u ictiqaadsan sidaas waxaan caddaan kari weyday oo la arki waayey bishii Shawaal waa la arki waayey. sidaa darteed maanta oo inoo ahayd 29 oo jimcana ahayd bisha Ramadaan waxaynu dhammaystiraynaa berito oo sabti ah soonkii bisha Ramadaan 30 maalmood bay berito noqonaysaa insha allahu. sidaasaynu doonayna dadkana ogeysiino wada ogaano kuna talagalno haddii la idhaahdo in berito buuxsanayno bishii soon amba Ramadaan 30 maalmood. waxaan runtii kula dardaarmi lahaa dadweynaha reer Somaliland in ay sidaas ay ku talagalaan isla markaana ay ilaaliyaan axkaamta ciidda ee soo socota oo ay ugu horeyso fidrigii in la bixiyo fidrigii inagu waajibay qof kastoo mustatiic kari karaya oo muslim ah oo bisha Ramadaan soo gaaray inuu iska bixiyo fidrig dhan ugu yaraan 2 kiilo iyo badh ama 2 kiilo iyo ruuc baa la yiraahdaa. laakiin hadduu badiyo oo 2 kiilo iyo badh ka dhigo uu raashin ku bixiyo raashinkana uu berito maadaama ciidii ay inoo suuro weyday in soo nimaadno oo xanuunka dartii looga baaqday laakiin guryaha lagu tukanayo oo salaadii ciidda oo sideedii loo tukanayo oo culimaduna ay noo sharxeen in badan noo sharxeen haddaan ku yar celino waxa weeye qof walba wuxuu tukanayaa 2 ragcadood. ragcadda koobaad takbiirta u horeysa markuu Allahu akbar yiraahdo uu ducaysto ducaa istiftaax uu duceeyo ayuu wuxuu bilaabayaa ugu yaraan 7 jeer Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar yiraahdo. 7 jeer markuu dhameeyo ayuu faatixada akhriyaa dabeetana suurada uu fudud ee kari karayo ayuu akhriyaa. waxaana sunnaa sabbix isma rabbika al-a'la inuu akhriyo. ragcadaas ku dhameynaya marka kale uu soo kacana wuxuu akhriyaa sidoo kale Allahu akbar tuu ku soo kacay weeyaan. wuxuu raacinayaa tii hor 7 nidhi amba 9 bay la sameyn karaa laakiin tan dambe 5 bay noqonaysaa. 5 takbiirood ayaa Allahu akbar Allahu akbar Allahu israacinaya. 5 markuu dhameeyo faatixadu akhriyaa طبعا bisinka ku bilaabaya faatixadu akhriyaa wuxuu raacinaya marka suuratul hal ataaka hayatul ghaashiya amba suuratul ghaashiya suurada la yiraahdo akhriyaa oo sunna ah. haddii kale suuradu kari karo ee fudud ayuu akhriyaa. wuu salaamo naqsanay markuu dhamaysto ragcadana wuu salaamo naqsanaya isaga iyo caruurtiisa iyo ehelkiisa guriga iskaga tukanayaan ilaahayna saas ku baryaan. takbiirtana intaan la gelin salaada takbiirta habeenka ciid oo habeen damba markuu bilaabanto dadku takbiirta way wadayaan gooni gooni iyo kali iyo laba iyo guriga dhexdiisa iyo wadooyinka dhexdooda iyo bahda kale saxaafaduna way wadaysaa gaar ahaan fogaal araga ama waxa la yiraahdo TV-yadu way ku wadayaan haddii la yiraahdo. taasuna waxa weeyaan axkaamta ciidda waana ka warhaynaa inaan walaalayaal maanta inoo suuroobi weyday ama aanay suurtagal ahayn in ciidii la isugu yimaado maadaama oo laga baqayo xanuunka faafaya. asbaabta dad badan baa naqdiya oo leh waxay la mid tahay maxaan ku raay suumaatida kale faraha badan ee dhacay iyagoo waxyaalo soo daliishanaya غير caadi oo dhacay amba khalad ku dhacaan amba dee loo kasee laakiin waxaan u sheegaynaa walaalayaal
dadkeena soo ciidaya waa ogtihiin mar alla markaa salaada laga baxo waa la isdhunkanayaa afka la isu saarayaa dhinacyada la iska salaamayaa gacmaha la iska salaamaya la garan mayno ciidada xanuunkiisida ma garanayno dhakhaatiirtu saas ku taliyeen arrin wadaad ka hadli karo ama sheekh ka hadli karo dee ma aha inuu yidhaahdo war ninkii dhakhtarka ahaa maanta takhasuskiisii weeyaan aan ixtiraamo sheekhana waa la ixtiraamayaa laakiin inuu ku talax tago ma aha wanaag baynu ka doonayna walaalayaal maalintii la iscaanaan lahaa maaha maalintii la isdacaaydeen lahaa maaha maalintii la iscaayi lahaa maaha maalintii ujeedooyin siyaasadeed iyo ujeedooyin mucaaradnimo meesha laga dhex tegi lahaana ma aha waxa weeyaan caafimaadkeennii iyo nafteennii ayuun baynu u dadaalaynaa ayaan kuna dadaalaynaa sidii loo ilaalin lahaa waana mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu takbiirta masaajidada kor ma loo qaadayaa mise waa la joojinaya maya takbiirta masaajidkuna waa laga kabaaran karaa dadka masaajidka imika waa eedaanka wuu ka baxaa masaajidka marka intaa ka horeysa salaada ciida aana cadceeduna in mitr leeg amba waran baa la dhahdaa adoo fadhiya in waran leeg inay cadceedu kaa sarreyso marka haddii ay masaajidadu takbiirtaanna waa khayr bay ku dareen dadkuna wayna takbiirtaan waayo waa shaciiro wanaagsan oo ilaahayna faray oo ah walatukmil cidda walatukabiru allah calaa maa hadaakum bu ilahay leeyahy inaad dhammaystirtaan muxuu ahaay tirada soonka isla markaana aad ilaahay u kabaarataan ood weynaysaan markaa soonka in takbiirta aynu badinona waa shay qurux badan wanaagsan markaa tifiyadu laftooda takbiirta ha badiyaan habeenkaa ciidda ilaa iyo subaxa qaar magaalooyinka gobolada dalka jooga iyo hargeysaba oo iyagu sheegaya inay salaada loogi doonaan haddii taasi dhacdo maxay talaabada qaasaydo wallahi ninkaas waa nin khilaafay dambiila weeyaan waayo weli amrigiina wuu khilaafay taladii dhakhaatiirtana wuu khilaafay markaa hadii qof wax khilaafeena dee xaalkiisa waa garanaysaan waa dembi ayuunbu ku jira ninkaas mudane wasiire waad la socotaan guddidii waxaa lagu eedeeyaa in waqtiga salaadaha markay soo dhawaato in ay fasax geliyaan iyadoo ay jiraan waxbarashada sheegaysa marka waqtiyada salaadaha markay soo gaadho guddidiinu waxaad gelinaysaan fasax iyadoo 10kii bishii ramadaan fasax ayaad masaajidadii geliseen salaadii ciidda fasax baad geliseen waxaa jira mafishadii qaadkii marka weli waxba laga maqan suuqa hargeysa waad la socotaan maxaa jira nin dambiile ah oo runtii khilaafay waxaan ku dhahdaayey amarkii dowladda ha soo qaadanin annagu imka waxaanu ka hadlayna waa caafimaad ninka doonaya inuu ama masaajid isugu keeno maxaan ku dhahay dad oo khilaafo dadka ilaan diintii la dagaalami mayno dadweynihii la dagaalami mayno laakiinse isumaatin kasta oo runtii la isu dhow yahay sida imika isugu dhadhow yihiin maba banaano mana wanaagsana waayo tala dhakhtareed weeyaan dadku inay dhakhtarka taliisa qaataan weeyaan maaha inaynu isku riixno hebel baa sameeyo hebel sameyn waayo dhakhaatiirta masaajidada waxay noo yimaadaan dadkii noogu sharafta badnaa waxay noo yimaadaan dadkii aqoon-yahanka waxay noo yimaadaan culimmadii ganacsatadii dadkii waayeelkaa wanaagsanaa intii wanaagsan haddeen sareyna ka warraba markaa ka fikirayno ninkan aanu nidhi waara iska daama friska ee diiday ee si qarsoon isagu sameeyey isagay dembigiisana tahay isagana dee caafimaad darre isugu doonanaya laakiin waxaynu inaku saaraynaa xoogga saaraynaa uun inaynu dadka gaadhsiino khayrka iyo wanaagga cidda qaadanaysaana way qaadan ciddi kalena dee inaku shaabugna qaadan mayno sida bakistan karbaashi mayno dadka